magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay sidii looga adkaan lahaa kooxda Daesh ee dagaalka kula jirta dowladda ay ku jirta Soomaaliya. kulankan oo qabanqaabadiisa ay lahayd dowladda dalka Mareykanka ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya ku matalayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr. waxaa kulankani goobjoog ka ahaa wakiilada 79 dal oo ku buhoobay la dagaalanka Daesh iyo sidoo kale hogaamiye Trump oo isaga shirkani lagu martigelinayay dalkiisa. mudane Khayr ayaa tilmaamay in sidoo kale laga hadlay sidii loo xakameyn lahaa Daesh oo iyadu ka soo firxantay wadamadii ay ku soo jabeen sida Ciraaq iyo Suuriya oo markii hore ay ka soo bilaabeen. madaxweynaha shirkani martigelinaya Donald Trump ayaa waxa uu tilmaamay tan iyo intii uu qabtay talada dalka Mareykanka oo ku aadneed dhamaadkii sanadkii 2016 in qorshihiisa koobaad uu ka dhigtay la dagaalanka kooxda Daesh wuxuuna tilmaamay in hadda rajo wanaagsan oo ka leeyahay dagaalkooda. Thank you very much, Mike, and you are doing a spectacular job. I say that on behalf of many people. It's an honor to be here today. aad baad u maasantihiin dhamaantiin Mike waxaad haysaa shaqo cajiib ah waxaan tan u iri aniga oo ku hadlaya magaca dad badan maanta sharaf aad u weyn bay ii tahay inaan joogo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku sugan yihiin diblomaasiyiin iyo wakiilo kale oo ka socda isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalamaya kooxda Daesh maanta waxaan ka koobanahay 74 wadan iyo waliba 5 hay'ado caalami ah dhammaanteen waxa aan u midownay in aan la dagaalanno kooxda Daesh waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo kusimaha xogayaha arrimaha dibadda Patrick waxaad qabanaysaa shaqo aad cajiib u ah aad baad u mahadsantahay. Fantastic job, we appreciate it. Thank you. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo Ambassador James Jeffrey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan xubnaha halkan ku sugan ee u midoobay dagaalka kooxdan Daesh ee ku sugan wadamada mandaqada bariga dhexe iyo adduunka intiisa kale. In January 2017, only 2 years ago, ISIS had a vast amount of territory in Syria and Iraq. markaad eegto bishii January sanadkii 2017 kaliya 2 sano ka hor kooxda IS waxa ay haysatay dhul aad u ballaaran oo ka tirsan wadamada Syria iyo Iraq. Firi markaan imid wadanka oo aan noqday madaxweynaha waxaan rabaa inaan arko waxa ay haystaan kooxdan Daesh dib ayaan u fiiriyay wax weyn ma aysan haysan markii aan xafiiska la wareegay mid kamid ah shaqooyinkaygii ugu horeeyay waxay ahayd inaan aado Vaticanka kadibna aan weydiiyo inay soo saaraan ina tusaan qorshe aan kula dagaalami karo kooxda Daesh markaad fiiriso horumarada aan sameynay waxa kamid ah inaan awood siinay taliyaasheena ku sugan jiidda hore ee dagaalka sidoo kale waxa aan awood siinay una ogolaanay inay dagaalamaan dhigeena si toos ah si ay ula dagaalamaan kooxda Daesh loona burburiyo loona tirtiro marka aad fiiriso fakarka ay aaminsan yihiin maanta waxaan halkan u joogno waa taas marka intaas laga reebo waxaa jira horumar kale oo militarigeena ay sameeyeen oo ay waliba ka barbar dagaalamayaan isbahaysiga kale ee dhigeena ah ee ku sugan wadanka Syria markaad fiiriso kooxda la yiraahdo xogaga dimuqraadiyiinta wadanka Syria waxay xoreeyeen dhul badan oo ay kooxda Daesh ay haysteen oo ku sugnaa Iraq iyo Syria waxaan sidoo kale aan la wareegnay meelo badan waxaana haysanaa hadda in aan dhulkaasi si wanaagsan dadka ku sugan aan u tusno dowladnimada boqolkiiba boqol khilaafada islaamka kuwan la yiraahdo ee ku sugan wadamadaasi waxay yiraahdeen xoog ayaana loo sheegtay markaad fiiriso 2 sano ee la soo dhaafay waxaan la wareegnay 20,000 oo square miles ah oo ay ku sugnaayeen kooxdaasi meelo badanna waan ka xoreynay guulahaas aan gaarnay waxa kamid ah inaan xoreynay 2 magaalo ee Masuul iyo Raqqa oo ahaa meelihii ugu xooganaa ee kooxdaasi ay ku sugnaayeen waxaan dilnay oo aan tirtirnay hogaamiyaal badan oo kooxdaasi IS ka tirsanaa markaad fiiriso 60 kamid ah kuwii ugu sarsareeyay mid kastoo iyaga kamid ah wayna dilnay laakiin hadda waxay sameynayaan isbedelo iyo waliba inay sameeyaan isku shaandheen xagga hogaamiyaashooda laakiin taas uma aragno wax weyn inaan sameynay wali waxaynu rabnaa inaan guulaheena aan sii wadno isla markaasina aan meelaha ay ku sugan yihiin aan ka saarno kooxdaasi saraakiisha ugu sarsareysa ee kooxda IS yiraahdo ama Daesh ayaa dhamaantood badanaa la dilay 10 kamid ah iyaga ayaa isaga baxay kooxdaasi haddii aan wada jirno waxaan gaari karnaa guulo kuwan ka waaweyn
inagoo wada jirna ayaan badbaadinay 5 milyan oo rayid ah oo kooxdaasi ku hoos noolaa dhiggeena iyo saaxiibadeenna iyo axsaabteenna nala socda ayaana guulahaasi looga mahadcelinayaa dadkaasi badanaa hadda waxay ku nool yihiin nolol cabsi aan lahayn waxay rabaan waxa ay doonaan inay sameeyaan isbahaysiga caalamiga ah ayaan marka la doonayaa inaan u mahadceliyo oo ay ku jiraan dhammaan kuwa halkan jooga 3 toddobaad ka hor waxaan ku sugnaa wadanka Ciraaq waxaan la hadlay generaalada ugu sareeya ee ciidamada ay halkaasi jooga waxaan siiyay amar ah inay hore u socdaan 3 weeks ago I was in Iraq and I was talking to some of our great generals and I gave them the absolute go ahead kooxda daacish ayaa iyadu gudaha Soomaaliya waxa ay ka geysataa falal amni darro oo ay ku beegsadaan shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala xarumaha dowladda federaalka Soomaaliya ciida aroos maagane TV-ga codka bariga Afrika Muqdisho